bisha toddobaad 15-keeda sanad walba waxaa la qabtaa xaflad noocan ah oo loo qabanayo dadkii geeriyooday Ilaahay u naxariistay waxayna ku geeriyoodeen isku daygii inqilaabka ee ka dhacay hadda ka hor wadanka Turkiga kaas oo dad badan ay wax ku noqdeen naf badan lagu waayay dhamaantood booradahoodii waa kuwa iyo sawiradii la yaabka lahaa ee waqtigaas la qaaday warkii oo faahfaahsan ama saxoogtii oo faahfaahsan waxayna soo gudbinay Cabdixakiin oo jooga ku taaya qaab ku dhacay 15 bishii 2016 15 bishii toddobaad inqilaabkii dhacay qaab ku dhacay weeyaan diyaaradda weerarka waa tan iyo kaaraha waa u jeedaan meesha waxaa weeye Istanbul ya waxaa weeye Fatih waxaa la dhahaa Fatih Köprüsü waa kii Yurubta iyo qaybta Anadolu'ga u dhaxeeyay qaybtan waa qaybta Yurubta qaybtana waa qaybta Anadolu marka askartan xaggaas dadka xabadinaysa kumaan qof ku dhintay dadkan oo mujaahidiin kan waa askari ka soo horjeeda askarigan waa askari la qabtay labadana way salaameen saasay ku heshiiyeen meesha waa guryaha qaabka loo dejiyay gawaadhidii magaraansa askarta in dadkii soo dhigeen dadkaas soo dhigeen booliiskii weeyaan meeshii booliiska oo la weeraray oo saas laga dhigay iyadana askartaas weerartay dadkii maaragtay say u jiifaan waa aragtaan dadkii say u jiifaan gawaadhidii waaweynaa xamuulka waday taangiyadii ayay soo dhigeen way jiifsadeen meeshana waa ujeedaa askarigii inuu ana qabteen waa shacabkii baa askarigii qabanaya qoriga ka qaaday isdhiib bay ku dhahayaan meeshana waa satellite iyadan digada laga dhigay sida diyaaradaha loo hago wallaahi ujeedaan ninkan waa ninkii inqilaabka sameeyey waxaa la dhahaa magaciisa sheegi maaye waa lagu xidhaya dashe magay naga wasiya lan xidh Fethullah Gulen baa la dhahaa waa ninkii inqilaabka sameeyey ninkanna waa nin dhaawaca oo la qaaday waa ujeedaan waa la qaaday shacabkii iyagaas guray dadkii waa taangiyada soo dhigay askartiina waa kuwa taangiyada ka soo baxay waa la xidhayaa iyagana dadkaa xidhaya markuu ku yiri Erdogan magaalada wadankiina badbaasada dadkii waa kuwa soo dhigay kaarayaashii iyo meesha waxaa weeye Boğaziçi Köprüsü Istanbul yani Boğaziçi Köprüsü waa Fatih Biriçki Fatih weeye Sultan Mehmet ninkii Istanbul furtay biriçkiisii weeyaan biriçkana micooyin fara badan buu leeyahay hadda idinka sheekeyn mayno ma garanaysaa qaybta waa qaybtii Yurub qaybtana waa qaybtii Anadolu askartuna Yurubta uma gudbin Anadolu'na kama gudbin waa la xiray dadkii waa soo jiifsaday waa kuwa dadkii soo baxay magaalada soo baxay wadankoodii waa kuwa badbaadsaday marka waa kuwa iyaduna waxay la wareegeen taangi taangigii bay qaateen meeshana waa Ankara Kızılay iyaguna waa kuwa isu soo baxay Ankarana waa magaalo madaxda maadaama ay tahay iyadana askar fara badan baa joogtay dadkii dawladda u shaqeynaysay bay rabeen inay xidheen dadkii baa badbaadsaday waa kuwa dadkii soo baxay meeshana waxaa weeye ninkii Genel Kurmay Başkanı macnaha waxaa laga wadaa generaalkii ugu weynaa Genel Kurmay Başkanıga ayaa generaalkii baa doonayay in la dilo oo ma garanaysaa askartu weerartay meeshana dadku shahiid badan bay ku dhiibeen dadkii halkan bay iyaguna yimaadeen oo waa kuwa la wareegay taangigii la wareegay iyaga dad waa kuwa jijiinaya taangiga marka kumaan qof waa ku dhintay meeshana waa Kızılay Ankara
Bu yapı ne zaman? Meeshanna waxaa weeye Taksim Istanbul. Taksim waa la yaqaan dadka dhan baa yaqaan Taksim Istanbul weeyaan. Oo kuwaas dadkii iyaguna soo baxay bir sivil toplum örgütü olmadığını, bir terör örgütü olduğunu. meeshanna waa kuwa shahiidadii iyo Recep Tayyip Erdogan oo shahiidadii dhiibay oo u ducaynaya. Ne dedi? Maşallah. Bunlar bir terör örgütüdür. Bunlar devlete kastetmiştir. Bunlar da dönüşümünde bulunmuştur dedi. Peki. Madaxweynaha gurigiisa iyo magaranaysa dadku iyo soo tumeen oo la doonayo in aysan magaranaysa askartu dhaafin. Bir terör örgütü oo kuwaas dadka iyaga wadankooda hagaajistay belgesine kadar iyaga la wareegay tescillendiği halde burada şuna bakmak. meeshana waxaa weeye magaalo madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan gurigiisa caadiga uu seexdo tanna waa meeshuu magaranaysa bay ahayd uu ku siri jiray boqortooyada ahayd tanna waa gurigiisa way caadiga ahayd gurigiisina waa kuwaas gawaarida la hordhigay magaranaysa dadkii gawaarida inta hordhigeen difaaceen intuu diyaaradda ku maqnaysan diyaaraddu fuushana diyaaradda markuu ka soo degay ayuu magaranaysa airportku ka bixi waayay marka magaaladana markii ay qabsadeen shacabkii uu ku yiri shacabka qabsada magaalada shacabkii markay qabsadeen bushna soo baxay gurigiisa işlem yapmaya si wacan ban televizyonuna gittiğinde kimle o savcının işlem yapması waa kuwa la hor jibsaday askartii waa kuwa la xidhay la qaqaawiyay Sayın Kemal Kılıçdaroğlu waa la xidhay waan ku yiri askartii askar baa qabatay iyo shacabkii diyordu ki way qaqaawiyeen bu yapıyla ilgili işlem yapmak istiyorsun wax walba way ka dhigeen taangiyadiina way iska dhiibeen meydan okuyordu 15 Temmuz'dan sonra meeshan waxaa weeye meeshii askarta ay ka bilaamatay nimankan inay wadanka ka weeraraan ay ka qabsadeen telefoonadii hawadii wax walba ay ka qabsadeen nimankan wadanka la wareegayay Fethullah Dhoo Fethullah Gülen belki nimankaas magaranaysa takdir edilecek bir şey. meeshana dadkii waa kuwa lagu dilay lagu laayay meeshii ay ku weerartay diyaaraddu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katıldı, siyasi partiler katıldı. Kuwaas waxaa dhan waa isku mid iyo inta qof la dilay ama şu soruyu sormamız gerekiyor. iyo Recep Tayyip Erdogan markii la sugayay dadku soo dhaweynayay sugayeen ay ilaashanayeen dad kumaankuna isugu yimi airportki wakaas airportki oo jeedaan gibi FETÖ'cülerin 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak medyanın kullandığı wadan haddii la ilaashanaysa saa loo ilaashada alxamdulilah wadankooda way ilaashadeen bu sorunun cevabına waa kuwa taangiyadii way la wareegeen dadkii baa la wareegay Türkiye Büyük Millet way Meclisi fuusheen taangiyadii meeshanna waxa weeye waa Boğaziçi Köprüsü waa Fatih oo magaranaysa biriskii weynaa Yurub iyo Asya u dhaxeeyay tilmaamay yasama kana waa İzmir magaalada İzmir orada toplandı. kana waa Ankara oo ku soo laabanaysa badanaa waa Ankara İzmir iyo İstanbul bay wax badan ka dhaceen siba İstanbul günün anısına markuu madaxweynuhu soo baxay banaanka u soo baxay wataas ugu horeysay banaanka u soo baxay isagoo Istanbul ayuu ka soo baxay markuu airportka ka yimid meeshana waxaa weeye madaxweynaha gurigiisii oo masaajidkii uu dhisay madaxweynuhu masaajidka ugu weyn isagaa dhisay masaajidkan neden oturumu olmadı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? masaajidkan Istanbul markaad tagtaan masaajidkan soo eega masaajidka Recep Tayyip Erdogan dhisay special soo eega masaajid aad u qurux badan oo weyn weeyaan oo gudaha weliba masaajid markuu ka yahay xagga hoosena waxaa ku yaala wax walba oo arki doontaan insha Allah qofkii Istanbul taga masaajidka ha tago Ankara Genel Kurmay Ankara Demokrasi Şehitler Metin meeshana waxaa weeye markii la dhiibay shacabku mudaharaadka u soo baxay dadkii la laayay la aasay weeyaan shacabkii soo baxay oo go'a malaayiin qofa oo calankii Turkiga wata soo baxay meeshana shahiid badan baa lagu dhiibay oo dadku aad bay ugu dhinteen nasiiba askartu aad bay ugu dhimatay askarta ka soo horjeestay askartii kale aad bay u laayeen askartii wadanka iska lahaa iyo askartii inqalaabka sameynaysay waka gabadha maasha Allah calankeedii ay qaadatay intaas ku dhamaaday warku